السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل والبات شوكتان وعبد محمود قلاع iyo barnaamijka idinka iman jiray macadka nabad iyo bulshada. barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynaa nin la yiraahdo Cismaan Dube. Senator Cismaan Dube wuxuu ahaan jiray wasiir waagii farmaajo, wasiirka warfaafinta, haddana waa nin senator. marar hore ayaan runtii ka hadlay Cismaan Dube oo aan ku diiday sida uu u abaaro arrimaha. Cismaan Dube waa nin qaran, waa nin senator, waa nin wasiir ahaan jiray, waa nin ka mid ah dadka Soomaali hogaamiya. marka waxaa la rabaa qofka caynkaas oo kale inuu afka qaranka ku hadlo, gaar ahaan markuu taagan yahay meel arrimihii qaranka looga hadlayo, meel ummadii Soomaaliyeed mustaqbalkeeda looga hadlayo, meel lagu sharfayo dad ummadda u shaqeeyay oo ma garanaysaa qiimo leh. markii arrin qaran tahay waxaa la rabaa inuu afka qaranka ku hadlo. bal fiidiyoogan halkaan eega. General Gafo runtii nagu waa isqaraabaysanaayo sida xildhibaan gobsa sheegtay marka sayidnimadaba laga tago family friend baan nahay oo adeeraday oo dhan bay khaas soo ahaayeen. General Ahmed Hassan Biixi, General Ahmed Abdullahi Ayaale, General Cirro, generaaladii oo dhan, General Waraabe Cashuur, ragga tiimkiisa u garanayo oo dhan ay isla soo kareen waa mayaan kalis. marka family khaas baanu nahay oo raggiisii oo dhan waa ragga wada garanayo. fiidiyowga waxaa Cismaan uu yimid xaflad lagu maamuusayo ninka la yiraahdo General Gafo. General Gafo waa ninkii ahay muddo dheer haysan jiray immigrationka Soomaalida. Nuur Galaal ayuu uga hooseeyay, markii dambana Nuur Bidaar baan leeyahay, Nuur Bidaar buu uga hooseeyay waagii dawladda kacaanka muddo dheer buu halkaa ka shaqaynayay. markii dambana waxaan maray in isagu madax uu ka noqday. waa dambe haddana dib waxa ugu yeeray dawladdii Cabdullaahi Yuusuf oo baasaboorka maanta iyo immigrationkii arrimahaas oo dhan ninkii salka u dhigay buu ahaa. waa nin oday Soomaaliyeed, Soomaalinimo iyo wadaninimo ayaa ku jirta. buug buu qoray uu malaha dadka Soomaaliyeed ku dhiirigelinayo, waayo aragnimadiisiina uu kula wadaagayo. Dube wuxuu hadalkii ku bilaabay qabyaalad iyo balaayo iyo meel buu wax ka soo gelinayaa oo isku waxaanu nahay Gafo waanu isleenahay oo General Hebel iyo General Hebel iyo General Hebel iyo maraha generaallo uu isagu reer ahaan isu xijinayo ayay asxaab ahaayeen oo kanoo caynkaas oo waa kaasoo family baanu nahay oo kan baanu nahay. si fiicanna uma oran karo, waayo wixii wax run ku fadhiya maaha, laakiin haddana wuxuu rabaa inuu si uu isu xijiyo. anigu arrintaa waxaan u arkay ayaan daro. generaalada uu sheegayo iyo Gafo waxa isu keenay waxay ahaayeen madax Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed u wada shaqaynaysa ayay ahaayeen. qabiil la isuma keenin, kana isuma keenin. Cismaan Dubena ragga uu tirinaya adeeradiisna ma ahayn, mana uu ana aqoon, laakiin wuxuu ku leeyahay reer waqooyi bay ahaayeen ama qabiilkayga ahaayeen ama caynkaas ahaayeen. waxaas marka waa ayaan daro. war afka qaranka waa inaynu barano, inaynu ku hadalno danta qaranka, inaynu ka shaqeyno, inaynu iska dayno waxyaabaha qabiilka iyo u xaglinta iyo qof inaad qabiil ku soo jeediyo inaad qabiil isugu dhaweysay daciifnimo ayaan anigu u arkaa, waana waxa inala haray. Dube mar kale waa kan haddana shacabka Somaliland ee safraya dhibaato badan ma haysata, ma cawdaan, ma qayliyaan. maamada 10 caruur haysata inay dalkeeda timaado $1,500 10 caruur wadata 1,500 fiisa looga qaaday ma aha runtii wax de laga aamusi karo. intay ku xanibanto airportada Dubai iyo Addis Ababa iyo waxa ka socda hadda ogaan lahaydeen, haddana nidu idin sheegay dadkanina ma aha dad kala maarmaya. dadka Soomaaliyeed waa dad hela ugu jeclaa Soomaalinimada. imika nabar waxa jira nabarro aan weli bogsan oo lagu geystay magac dawladeed. dadka shacabka Somaliland waxa hareerahooda ka socda ma eegaan.
waxalla wixii dhaqaale dunidu bixinaysay muqdisho yimaadaan waxalla wixii tababar la dirayay halkana laga diraa 2,000 oo scholarship baa la helaa iyo 5,000 oo scholarship boqolaal generaal waxaa midna kuma laha hashoodii baa lagu hormaaraa xafladii loogu talagalay in lagu maamuuso General Gafow Dube wuxuu la aaday hifasho iyo cabasho uu dadkiisa maaragtay aan ruuqooyi ugu doodayo anigu waxaan qabaa inuu ku hadlo in loo ogolaado inaan ahayn way xafladii oo dhan buu qasayba marka koowaad way xafladda muhiimaddu waxay ahayd Gafow iyo wuxuu ummadda u qabtay iyo buugiisa in laga hadlo wuxuu yiri dadkii ruuqooyiga waa la dhibaateeyaa waxba lama siiyo hantida wax dawladda lagama siiyo darajooyinka wax lagama siiyo scholarship-yada wax lagama siiyo kan wax lagama siiyo Somaliland iyagaaba diiday oo ka baxay Soomaaliya iyagaaba inaga goostayba dad wadankii ka goosta in asxaab loo sameeyo maaha in xoog lagu soo qabtay in dagaal lala galay waxaas oo dhan waa laga daayay waxa la yiri bal ha lagu dayo tartiib iyo magaciisi bana ay rabaan iyagii baaba goostay yaad eedeynaysaa marka hadii iyagii diideen inay Soomaaliya wax la wadaagaan Dubow yaad eedeynaysaa waxa iyaga aad leedahay waxba ka maqan Soomaalida kale ma ka maqan yihiin adigu ma eegtay waxa aad sheegayso la leedahay intaan iyo kan Soomaalida kale ma u damqaraysaa waxba loo geystay oo dagaalkii baa lagu qaaday oo caynka ayaan daro waa ka xumahay inuu dagaalka lagu qaaday in dhibaato ka dhacday laakiin dadka aad u doodaysaa Taylaas caanood ka geysteen ama dila iyo boorama ka geysteen maxay ku damqlaada maxaad uga hadlilaada waxa soo dhan wax weeye afka qabiilkeenu ku hadlayna يعني ninka Soomaaliyeed oo madaxda markuu hadlo ma rabo inuu ku hadlo afka qaranku wax buu daaweeyaa wuxuu ka hadlaa sharciga in loo sinaado xuquuqda in loo sinaado fursadaha in loo sinaado shaqada in loo sinaado wax walba in loo sinaado wuxuu sheegaa afka qaranku inaan qofna sharciga ka weyneen wuxuu sheegaa qofkii ku xadgudba qaranka ama ma garanaysaa wadanka kala gogoynaya in isku meel looga soo jeesto Dube waxa kama hadlo reer buu ka hadla anigu waxaan qabaa Dube iyo ragga Soomaaliyeed oo kale ee madaxda ah inay dib isugu noqdaan inay ka fikiraan war wadankan kala daadsan kala cabasho iyo qabiil iyo magaciisi kuma gaarsiin kareen see ugu fikiraa qaran ahaan rag qaran inaynu noqono iyo gabdho qaran inaynu noqono oo si qarannimo ah u fikiro see baynu ku keenaa oo qabiilka iyo waxaan aynu ku wareegayno aynu ka tagno way marka qabiil u hadasho qolo u hadasho mid kala ku diidaya mid kala ku sharaysanaya midnimadi baad wiiqaysaa marka dhibaatad geysanaysaa marka dadka Soomaaliyeed arrimaha halka aan kaga hadlay oo Dube uu ku hadlay bal walaalayaal oo qiimeeya idinku haddii ummadda Soomaaliyeed dadkii madaxda u ahaa nin walba uu qabiil u soo istaago intuu qaranka u istaagi lahaa maxaynu ku dambaynaynaa idinkaan idinka tagayaa su'aasha inaad ka jawaabtaan ugu dambayn waxaan idinka baryayaa inaad subscription iyo like ku samaysaan oo taageertaan channelka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa Cabdi Maxamuud Qalla barnaamijka idinka iman jiray macadka nabadda iyo bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.